waxgaradka deegaanka Meygaagle oo la hadlay TV-ga caalamiga ah ee Kalsan ayaa fariin adag u diray dadka u dhashay gobolka Cayn gaar ahaan Meygaagle kuwaas ay ugu baaqeen inay maal gashadaan dhulka Meygaagle oo dhul aad u ballaaran waxa ayna sheegeen in qurbo joog badan iyo ganacsato ku sugan Buuhoodle Meygaagle ku leeyihiin dhul baaxad weyn isla markaana ugu baaqayaan inay soo dhistaan dhulkaasi waa kan ugu horeyn gudoomiyaha Meygaagle Khadar mid bislaaday oo ka hadlaya bismillaahirrahmaanirrahiim salaatu wassalaam ala rasuulillah ilaahay ma iskale ama bacdi waxaan baaq u jeedinayaa dadkii ama qurbo joog ahaado ama gudaha joogo ama ha dhawaado ama ha dheeraado waxaan baaq kama dambaysa u dirayaa dadkii sarfeeyka kaabadaystay ee degay boosaska kulaha qaar guryaha ka dhisteen marka laga reebo Caldakaawe wiilka la Caldakaawe ma hadaan celinayaa gurigaan sploorka dhameystiran buu leeyahay oo la degan yahay sidoo kale dayib iyo ninka Cabdishul Gooyo iyaguna gacanta ku hayaan singada qolqolaa dhisan dadkii dhulka 700 ilaa 800 ee balood ah ama 900 dhulka biyi ka dhameeyay dhirtii ee degay baaq kama dambaysan u direynaa dhulka waxaan leenahay waa in la dhistaa waxaan leenahay meeshii hal digo bari ka maalin hadaan taawayno qof walba 100 fiya laga qaaday guddi baa ka qaaday waraaqna waa loo gooyay qof walba 100 kaaga khasaaratay kaabadana waan saarayna hadaan reen Meygaagle beeraan ka dhiganayna dhul banaan ma ka dhiganayna annaga dhisayna qofna dhowto yus oran dhul baa laga burburiyay 5 qabanayna oo maanta ka bilaabma waxaan u sheegaynaa dadka wax haysta ama gudaha jooga dibadda jooga reer Buuhoodle MCH iyo iskuulka waa waxa laga qabtay waxaan ugu baaqayaa dadkii meeshan loogu talagalay inay degaan ee loo sarfeyn gareeyay ee maxaan ku raadin dhulka kaabadaystay inay dhistaan baan ugu baaqayaa Meygaagle ayaa ah deegaan ballaaran oo ku haboon beeraha waxaana ay dadka reer Meygaagle sheegeen in haddii ay heli lahaayeen ri ama biyo ku filan inay beero waaweyn oo wax soo saar leh ka hirgelin lahaayeen deegaankaasi Cabdicasiis Aadan Jaamac telefishinka caalamiga ee Kalsan Buuhoodle.